Cabdilaahi Cismaan Nuur waxa uu ka mid yahay daawada qurbajooga Soomaaliland ee ku nool dalka Mareykanka waxaanu muddo 6 sano ka maqnaa Soomaaliland waxaan kula kulano nasiib u yeelanay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana wax ka weydiiyay bal 6 sano ee uu dalka ka maqnaa iyo isbedelka muuqda ee Soomaaliland ay gaadhay si ay fariinta ugu dheegaysay guud ahaan bulshada caalamka bal Cabdilaahi ka waran 6 sano maqnayd maxaa isbedelay walaal 6 sano gudaheed waxyaabo badan baa isbedelay oo aan halkan ku soo koobi kareynin waxa kamid ah dhismayaal aad iyo aad u casri ah waddanka laga sameeyay dhulkii aad loo dhisay businessadii aad u soo kordhay oo imika Hargeysa wax aanad ka heli kareynin oo dabadaha ama qurba aanad ka helin ma jirto marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa dadka Soomaaliland horumarka gaadheen iyo sida u dhisteen caasimadooda Hargeysa iyo dhammaan dalka Soomaaliland marka laga hadlayo Soomaaliland waxay heshiis la gashay dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan maalgelinta dekedda magaalada Berbera bal ka waran taas sidee u arkaa aqoon-yahan ahaan iyo Soomaaliland darhaanba dealkaas waa deal aad iyo aad u muhiim aad iyo aad noo fiican deelasha noocaasi waxay qaataan muddo iyo sanado aad u far badan in laga shaqeeyo waxa mudan in loo mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo aad iyo aad xukuumaddiisu ay uga shaqeysay inay dealka ay soo gacan geliso wuxuu abuurayaa shaqooyin far badan oo dhalinyarada ay ka shaqeyn karto shaqo abuur badan buu sameeyaa dalkana horumarkiisa qayb weyn buu ka qaadanayaa baan u maleynayaa dealka lala soo galay Dubai Port dhalinyarada takaliyan oran lahaa waxa weeye naftiina iyo dalkiina aamina hadaa dalkiina aamintaan naftiina aamintaan meesha aad gaadhaysaan idinkum baa isku haya Saciid Cabdilaahi Xasan Samatar Maxamed Maxamuud Samatar yare wararka TV-ga qaranka magaalada Hargeysa.